qoom laga dhigay daanyeero. Qisada asxaabu sabti. Koox ka mid ah Yuhuudda oo deganaa magaalo xeeb ku taala oo lagu sheegay inay tahay magaalada Eyla ee ku taala xeebta Badda Cas ama Baxrul Qalsam. Kuwaasoo haystay diintiina Muuse ayaa lagu imtixaamay inaysan kalluumaysan maalinta Sabtida oo ay cibaadaystaan kaliya. Yuhuudi deganayd magaaladan ayaa Allah ka dalbadeen maalin ay cibaadaystaan oo aanay qaban wax shaqo ah. Kadibna Allah waxa uu faray in maalinta Sabtida ay cibaadaystaan oo aan loo ogolayn inay shaqaystaan ama ay kalluumaystaan. Balse maalmaha kale oo dhan way shaqaysan karaan oo kalluumaysi tagi karaan. Allah waxa uu ku imtixaamay kooxdan in kalluunku dibadda u soo baxo ama bannaanka u imaado maalinta Sabtida ee aan la ogolayn in la kalluumaysto. Hase ahaatee maalmaha kale waa lagu cariiriyey ama kalluunku maba yimaado xeebta oo waa la waayaa. Waxay u dul qaadan waayeen imtixaankii waxayna bilaabeen inay khiyaano sameeyaan. Maalinta Jimcaha ah ee la ogol yahay kalluumaysiga ayay xeebta dhigeen shabaagtii lagu dabayay kalluunka. Habeenkiina way kaga seexdeen si kalluunku markuu yimaado maalinta Sabtida ay ugu soo gasho shabaqa. Kadibna ay ugala baxaan maalinka Axadda ah ee la ogol yahay. Waxaa kale oo la yiri godad ayay qodeen si kalluunka Sabtida imaanaya ay ugu daataan godadka. Markii arrintii u suurta gashay ay dadkii deganaa magaaladan u qaybsameen 3 qaybood. Qayb kalluumaysata maalinta la ogolaa kalluumaysiga, qayb khiyaano samaysay, iyo qayb ka waanisay xumaanta kuwii khiyaanada sameeyey. Qoladii khiyaanada samaysay waxay dhaheen annagu waxaan kalluumaysanay maalin Jimco ah oo nala ogol yahay ama Axad, mana aanan kalluumaysan Sabti. Qoladii labaad oo ahaa kuwii ugu fiicnaa ee aan Allah ku caasinin ayaa dhahay Allah wuxuu inaga xaaraantinimeeyey kalluumaysiga maalinta Sabtida. Adinkuna kalluunka Sabtida ayaad kalluumaysateen. Waa khiyaano cad ee joojiya macsida aad wadaan. Qoladii saddexaad ayaa u tagtay qoladii wanaagsaneed oo ku dhahan maxaad ka waaninaysaan qoom Ilaahay khiyaanay oo Eebbe cara ku soo ridayo. Kuwani halkii ay dadka ka wacdin lahaayeen ayay kuwii wanaagsanaa ee xumaanta reebayay niyad jabiyeen. Kuwii wanaagsanaa waxay dhaheen annaga waajibkana saaran ayaa ah in aan waanino dadka xumaanta falaya. Hadday doonaan ha dhegaystaan ama ha diidaan ee waajibkeena ayaa ah inaan u nasteexayno cid kasta. Dadkii deganaa magaaladan ee aan ka qaybgelin kalluumaysiga xaaraanta ah waxay xireen guryahooda oo ka fogaadeen xumaanta iyo xeeladda farsamaysan ee ay sameeyeen qayb ka mid ah Yuhuudda. Maalintii dambe ayay dadkii Sabtiga kalluumaystay isu beddeleen daanyeero, qaarna waxaa loo beddelay qinsiiro ama doofaarro. Kadibna waxay u tageen ehelkoodii iyagoon hadli karin. Markii ehelkoodii arkeen ayay canaanteen oo ku dhaheen miyaanan idinka reebin xumaanta iyo khiyaanada maalinta Sabtida. Daanyeeradii waxay ruuxeen madaxa oo dhaheen haa. Allah waa u ciqaabay kuwii xadgudbay maalinta Sabtida. Kuwii kale ee wanaagsanaana waa u koryaalay oo ka badbaadiyay cadaabka.